السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. رجعوا قاتم درين كهوس ودعين إني سينك سبلمنتي أي سي جوكتا واستعمالا سي درين كودا يقصو كعيان رجعسين وحي وجهان دبعتا كلام وعافيمات وإن شاء الله هل كان دونينا نكون شاغنو horta mar kasta oo dawo aad la saaxiibto dawadaasi ama supplement ha ahaato oo waliba herbal ama dawo kale oo iyadana prescription ku soo baxday ha ahaatee dhibaatooyin caafimaad ka dhasha singi macdantaasi waa macdan ragga u wanaagsan jirkana u wanaagsan oo qofku inuu qaato wax dhibaato ah oo ay ku keentaa ma jirto marka dhakhtar uu soo qoro ee prescription ay ku soo baxdo ee dose lagu jaangooyo ee qofku uu si routine liya dhakhtarka uu laabanayo oo controlka dhakhtarka uu ku noqonayo dhibaato ka dhalata ma jirto laakiin inta badan waxa jirta dawadan waxa lagu iibiyaa goobaha caafimaadka ee qofku iska soo iibsan karo kadib rag badan baa iska soo iibsada markay dawada cunaan dareenkoodii wax badan baa iska bedela oo dareen ay ku farxaan iyo awood ay ku farxaan bay arkaan kadib arrintii waxay ku sababtaa ninkii dawadii inuu la noolaado oo uu muddo dheer isticmaalo maadaama oo ay wax ka bedeshay dareenkiisii arrintaa markaa dhibaato caafimaad baa ka dhasha oo aynu doonayno markaas insha Allah halkaynu soconaa waa halkan waxa jirta laba cholesterol oo midna in dhibaatayso midna jirkeena ay u fiicantay cholesterolka jirkeena u wanaagsan ee leeyahay decent liver protein cholesterolkaas ee good cholesterolshaahi waxa ay jirkeena u samaysaa inay jirka iyo dhiigga ay ka remove garayso cholesterolka iyadu dhibaataynaysa caafimaadka jirkeena iyo wadnaheena iyo cholesterolki jirka dhibaataynaysa inay ka saarto ay jirkeena Ilaahay ugu tala galay markaas macdanta zinc hadaa si joogta aad u qaadato cholesterolka faa'iidada leh ayay hoos u dhigaysaa kadibna waxa jaanis helaysa cholesterolki kale ee iyadu markaas ku dhibaataynaysay qofkii markaas saasu wadna xanuun ku dareemaya cholesterolkiisa ay kacsanaanaysa madax xanuun ku dareemaya caguhu ay ololayaan oo caga xanuun ku dareemaya dhibaato iyo diiqadu ku galaya oo saasay khatar ku galaysa dhibta kale iyaduna ka dhalata waxa kamida in ay jirkeena ku samayso inuu jirku ka soo saarto cuntada ama cuntada inuu ka nuugo macdan la yiraahdo magnesium macdanta magnesium jirku kama nuugi karo ama kama soo absorption wax la yiraahdo kuma sameyn karo cuntadii kama soo qaadan karo markasta oo xaddi aad u badan oo singiya aad isticmaasho ama macnaheedu sinki xaddi aad u badan aad ka qaadato jirku kama soo qaadanayo oo marka caloosheena cuntada ay gasho ee systemka digestive systemka ay marayso ee cuntadii la kala saarayo qaybtii nafaqada lahayd lagala harayo jirku uu kala harayo qaybtii kalena dibadda looga saarayo waxa dhaafaysa jirka macdanta la yiraahdo magnesium kadibna magnesium haday ku yaraatana dhibaatooyin caafimaad baa iyadana ka dhasha markaas ayaa khatar iyo dhibaato ku galaysa marka looma baahna inaad muddo dheer aad iska wado oo dee sanawaad qaadanaya oo bilo badan oo sanad ku dhow qaadanaya loo baahna inaad wato dawada inay iska joojiso marka dareenkaagu fiicnaado ujeedada aad ka lahayd ka gaadhay ayaa fiican soo kale dawada inaad iska soo iibsato waa qalad inuu dhakhtar ku soo qoro oo prescription ay ku soo baxdo oo dhakhtarku siiyo ayaa runtii muhiim ah intaas ku soo ururinayo. Assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh.